kadib sanado badan ayay ku dhex dulmareed maamulka ay ka tirsaneed Gurceel oo ah halka ay canshuurta ugu badan ka soo gasho maamulka Galmudug. Shalatole ay ku bagneed 16 November ayay heshay xuquuqdeedii degmanimo. Magaaladan oo asbuucyo ka hor martigelisay dagaal aad u qaraar ah oo u dhexeeyay maamulka Galmudug iyo dowladda federaalka oo garab ah iyo xoogagga Ahlu Sunna oo iyagu markaas u talin jiray deegaano ay kamid ahayd Gurceel oo ah halka uu ka soo bilowday halgankiisa oo ifbixidooda ayaa loo fasirinayay in xilligoodii ay gacanta ugu jirtay nidaam shuuci ah oo ku dhisan urur diimeed. walow ay jireen dadaalo fara badan oo ay dadka deegaanka ku bixinayeen Gurceel inay hesho xuquuqdeeda degmanimo, haddana waxay u muuqatay in maamuladii kala dambeeyay ee degmada ay ka gacmo laabanayeen sidii ku heli lahayd xuquuqdeeda. ka magaalo ahaan waxay dhanka ganacsiga, horumarka, waxbarashada, caafimaadka iyo deegaanka kaga wanaagsan tahay degmooyin badan ay xuduud wadaag yihiin, loona aqoonsan yahay inay yihiin degmooyin fac weyn. dadka reer Gurceel oo waajibaad u soo ahaa dhacdooyin fara badan oo qalbiyadooda ka tirmin ayay tani kaga dhigan tahay inay guranayaan gurahoodii dulqaadka iyo niyad wanaagga ay ku beeranayeen.